الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka ugu horeysa Ilaah waa mahad iska leh. Ilaahi inoo suura geliyay kulankan quruxda badan inaynu isku xog wareysano iskuna dhageysano hadii Ilaahay ka dhigo inagoo isweydaarsanayna ama isdhaafsanayna wixii marka aragti iyo talo ah dalka iyo dadka aynu jecelahay dantiisa ay ku jirto. waxaan rabaa marka hore inaan ka mahadnaqo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan caasimadda Muqdisho sidii diiranayd aniga wafdigayga ay noogu soo dhaweeyeen magaalada Muqdisho runtii waa waxaan la ilaawi doonin ama aanan qalbigayga aan ka bixi doonin bay noqon doontaa soo dhaweyntaasi. caasimadda iyo dadka ku dhaqani waa u qalmaan inay tadxiyada inta leeg iyo raxaabada inta leeg ay muujiyaan waana ku mahadsan yihiin. waxaan rabaa inaan u mahadnaqo xukuumadda federaalka ah ee uu hogaaminayo mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda danqaran mudane xamse cabdi barre oo nagu casuumay inaanu nimaadno caasimaddii qaranka Soomaaliyeed ee Muqdisho. aad bay u mahadsan yihiin. mahadnaqayga waxaan raacsanayaa oo aan si weyn ugu mahadnaqayaa macadka Heritage oo ii suura geliyey ama i siiyey fursad aan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan indheergaradka iyo aqoon-yahanka halkan fadhiya aan kula wadaago aragtidayda ama aragtida deegaanada SSC Khaatumo ee ku aadan Soomaalinimada. waxaan kala u mahadnaqayaa wajiyadan quruxda badan leh ee ka soo qayb galay casuumaddii loo fidiyey ee u yimid inaanu isxog wareysano. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr. waqtigu waa kooban yahay ma filaya haddii Ilaahay ka dhigo warbixin yaroo kooban oo aan isleeyahay waxay koobaysaa wixii tegay iyo waxaad taagan ee deegaankaas baan doonayaa inaan idin la wadaago. waxaan ka soo bilaabayaa tan iyo markii ay burburtay dowladda dhexe ee Soomaaliya sanadii 1991kii Soomaaliya waxay gashay runtii marxalad mugdi ah oo madow oo qof kasta oo Soomaaliyeed dhibaatadeedu halkeeda ugu gaadhay. deegaanadaasi waxay ka mid ahaayeen dhulkii weynaa ee Soomaaliya ee ay dowladdii Soomaaliyeed ka burburtay bay ka mid ahaayeen. waxay ahaayeen deegaankii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed ee shirweyne qabsada iyagoo doonaya inay dhistaan ama sameeyaan ismaamul ay ku gaadhaan soo celintii qarannimada Soomaaliya. 1992 magaalada Boocama shirkaasi ka dhacay waxaa loo garan ogyahay Boocame 1. waxaa xigay shir kale oo isaguna kaa ka dambeeyey oo isla goobtii ka dhacay magaalada Boocame oo loo bixiyay Boocama 2. dadaalada dadkaasi ay doonayaan inay isku maamulaan ka mid noqdaan Soomaali weyn ka qayb qaataan soo celinta qarankeeni burburay ilaalinta haybadda iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed in badan bay dadaal u soo galeen welina waa u taagan yihiin. waxaa gudub socday fikrad kale oo iminka anigu ku odhan maayo way khaldanayd laakiin qof kasta oo waxgarada oo Soomaaliya way u caddahay fikraddaas inay ahayd fikrad aan qarankii Soomaaliyeed u qalmin oo aan geeyin inay ahayd. waxay fikraddaasi bilaabatay 1990kii markii la yidhi qarankii Soomaaliyeed waa la kala jarayaa ama waa la kala qaybinayaa. halkaa waxaa igaga baydhaya oo aan u soo qaadanayaa go-aankaa Soomaaliya lagu kala gooyey ama ay ku dhawaaqeen gobollada waqooyi galbeed iyo togdheer inay Soomaaliya ka go-een dadka deegaankan hadda aan metelaya ku nool ee SSC Khaatumo qayb kamay ahayn qabsoomidii shirkaa lagu kala goynayo Soomaaliya mana ay ahayn wax talo ah oo ay leeyihiin in meesha lagu gaaray iyagu.
way jirtaa shirweyne nabadeed baa ka dhacay magaalada Burco xilligaas waxaa ka qayb galay waxgarad uu hogaaminayay garad Cabdiqani garad Jaamac garad Cali oo wada garanaysaan raxmatullahi calayh garaadka iyo wafdigiisu waxay Burco u tageen in laga shaqeeyo nabadeynta deegaanadaas oo markaa runtii colaad ka soo doogay lana doonayay in colaadii la soo afjaro nabadgelyo lagu wada noolaado shirkaas garaadka iyo wafdigiisu ay ka qayb galeen ujeedadiisu intaasay ahayd laakiin nasiib darro hogaamiyaashii jabhadii SNM oo markaa la wareegay gacan ku hayntii gobollada waqooyi waxay ku dhawaaqeen in ay shirkaa ku go'aansadeen inay Soomaaliya inteeda kale ka go'een doodda ah ma wadaagno goon isu taaga iyo wada wadaagtaan ilaa hadda waa soconaysaa laakiin waxaan rabaa hal tusaale inaan soo qaato oo cadaynaya in deegaanada SSC Khaatumo ayaan tala ku lahayn kala goyntii waddanka qaybna ayaan ka ahayn tusaale cad oo cadaynaya baan idin sheegay haddii la ka dhigo kala goynta waxay ku dhawaaqeen ama goon isu taag waxaa lagu dhawaaqay 1991 isla mar ahaantaas maamulkaas gooni goosadkaahi uu ka howlgalay uuna ka dhaqaaqay deegaanada Burco iyo Hargeysa iyo inta ku xeeranba laakiinse maamulkaas gooni goosadkaahi deegaanada SSC Khaatumo wuxuu soo gaaray bishii Oktoobar 15keedii 2007 oo taariikh qoran oo cad weey wuxuu ku soo gaaray duulaan cad iyo qori caaradii haddaba haddii reer SSC ay wax ka dhisteen maamulka gooni goosadka ah ay wax ka gaareen go'aankii dalka lagu kala goynayay waa maxay sababta maamulkaasi uu uga hana qaadi waayay isla xilliga uu ka hana qaaday Burco iyo Hargeysa muxuu la socod uga hana qaadi waayay maxaa keenay baahida ah 17 sano kadib in lagu soo duulo oo qori caaradii lagu soo gaarsiiyo haddii ay rabitaankooda iyo doonistooda wax kaga dhisteen waxaan filayaa Soomaaliland intii ay iminka tiri waan ka ganay Soomaaliya waa 3 sanadood weeyaan 17 markaa waxa weeyaan sanadood in ka badan kala badh cimriga Soomaaliland aqliga saliimka wuxuu inoo sheegayaa haddii reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay wax ka dhisan lahaayeen maamulka 91kii uu soo gaari lahaa si nabadgelyo uga dhaqaaqi lahaa lana wada yeelan lahaa arrinkaasi wuxuu si cad u bayaaminayaa doodda odhanaysa waxbaynu wada dhisanay inay waxba ka jirin ka soo qaad maamulka waxbaan la dhisanay waana qancin waaye waa ka soo qaad miyaanan xaq u lahayn ka noqonnaa maadaama iyagu qarankii Soomaaliyeed ay wax ka dhisteen ay isu arkeen inay ka go'aan oo ka noqon karayaan xuquuqda ay u yeesheen inay masiirkooda ka tashadaan baan u leenahay haddiiba aan la dhisanay inaanu kaga noqonno aan qodobka labaad ee aan doonay inaan bayaamiyo waxa weeye waa garnaqsanaya oo wax kale ka sheekeyn ma hadii Ilaahay ka dhigo qodobka labaad aan bayaaminaya waxa weeye maamulka Soomaaliland iyo dadka taageersan waxay ku doodaan Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxay ku jiraan xuduudii Ingiriisku anaga na siiyay Ingiriisku dhul uu lahaa oo intuu cid ka qaaday cid kale siiyay ma jirin haddii laga wado xuduudii Ingiriisku uu ka talin jiray waa xuduud sharci ah oo jirta oo la aqoonsan yahay caalamiyan waa dood jaban shirweynihii ka dhacay Qaahira ee laga soo saaray bayaankii loo jeeday Qaahira Convention waxaa lagu aqoonsaday oo kaliya xuduudihii aminta qaaradda Afrika u yaalay innaga waxa la inoo aqoonsaday xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Djibouti xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Ethiopia iyo xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya laakiinse midowga Afrika oo shirka qabanayay
ma aqoonsan xuduud aan intaa ahayn sidaa daraaddeed wixii aan intaa ahayn in xad lagu sheegaa waa khalad in la yidhaahdo waa xuduud caalamiyo international lagu aqoonsan yahayna waa khalad labaad oo kale weeyaan marka waxaan ku yar darayaa ingiriisku markuu waqooyiga Soomaaliya yimi talo maanu dhiban anagu markuu tagayayna faataxana gama tagin war waxa ingiriis isagu ahayn way u taag waayay adigu hadda aad ku ganacsataa waa dawdar marka waxaan leeyahay Soomaalida aan marxato uga dhiganaya war kala goyntaan wax kuma aan lahayn xadka uu Muuse ku taamayaana waana wax kama jiraan oo xad caalami oo la aqoonsan yahay oo midowga Yurub iyo ururka IGAD iyo qaramada midoobay ay cidina aqoonsan tahay maaha sidaa daraadeed Soomaali qarankeedu waa qarankii Soomaaliya ee ay matalayso xukuumadda federaalka ah ee uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamed wixii inta ka soo haraa waxaan isleeyahay fursado kale oo ummadda looga faa'iideyn lahaa waa ku hoos lumaya marka waxaan leeyahay aqliguna ha shaqeeyo qof walibana wixii aan hurayn haddaba ha yeelo way waqtiga la iska lumin inta markaan ka soo gudbo garnaqsiga iyo taariikhdaas ku dheehan waxaan rabaa inaan xuso ugu dambeyntii markii ay Soomaaliland soo gaadhay caasimadii SSC Lascaanood 2007 waxay ku timi qori caaradii shirar badan baa la qabtay isku day badan baa la sameeyay maamulada lagu dhawaaqay eliidkii Soomaaliya kuwoodii ugu miisaanka weynaa baa hogaamiyay dhibaatada haysatay waxay ahayd Soomaaliland waa fahmi wada waxaan ahayn wixii ay meesha ku timid kaga tagto iminka kacdoon shacab baa wadanka ka bilaabmay dhalinyaro bilowday hablayna ma bilaabay waa kacdoonka aad maqasheen la baxay kacdoonkii buluuga ahaa calanka buluuga ay qiimaha badan bay soo qaateen dhalinyaradaasi iyagoo oo doonaya inay ayahooda ka tashadaan halka waxa la dhex geliyaa nin la dilay ama rag la laayay baad ka cabanayseene dooda kale waa maxay dadka waa la dilay horay u dhinteen ilaa 130 ka tirsan waxgaradkii deegaankaas baa madaxa loo duubtay oo la laayay waxaa lagaga hadhi jiray dablay aan haybteeda la garanayn baa dishay waxa joogay Lascaanood hay'adaha ammaanka laamaha amniga iyo ciidamadooda militariga ah 90% Lascaanood bay joogeen cidda wax dilaysa ee sida joogtada u leynaysa maalin kaliya may soo bandhigin qof hebel qofkaas dilay ama kooxdaas dishay markii kacdoonku bilaabmay hogaamiyaha maamulkaasi wuxuu yimid idaacada wuu hadlay wuxuu yiri dadka meesha lagu laayay 42 nin bay ahaayeen cidii dishayna waa haynaa qaar waa maxkamadaynay qaar maxkamadii waa socota kuwana waa xukunay maalinta ka horow dadka deegaanka iyo Soomaaliyeedna may maqleen hal mar dadka la leeynay ciidaas dishay halka markaad sii eegto waxa ku soo baxaysa in Muuse iyo rajiimkiisu ay ogaayeen gacan ku dhiilayaasha dhabta ah ee ay qarinayeen haddii uusan hore u ogeyn ma waxii baa ku soo degay hadeerto miyuu ku riyooday mise wuxuu is leeyahay hadalan jirno xaqiiqada ka fog ku garnaqso wax ku deji garan ma mid u jeeday laakiin marka la doonayo in kiis dhacay dabagal lagu sameeyo ninkan markii hore aan wax ogeyn ee hadeer wax ogaaday cidda dishay ee ka dambeysay markasta
isaga ka warqabay arrinkaasi wuxuu keenay kacdoonka aad maqasheen laakiinse 92 ka soo bilow ilaa iyo khaatumadii uu hogaaminayay boocama 1 boocama 2 shirkii Nairobi ee SSC lagu sameeyay xagala toos lagu doortay khaatumadii taleex khaatumadii saxdheer waxa soo dhan waxay isbedel doonayay in deegaanka wax laga qabto shirarka inta leeg iyo isku dayda inta leeg ma waxay ku saabsanaayeen nin baa la dilay maxaa loo dilay waa maya dhibaatada meesha ka jirta waxay ahayd rajiimkan Muuse Biixi iyo cawaankiisa dadkaasi rabitaankooda dalka kuma joogin waxayna go'aansaneen inuu iskaga tago markii hore laguma soo dhaweyn laguma rabin haddana dad umad ku darsata sidaan ugu dhaaf doodu waxay ahaanaysaa ama ay ahaydba kacdoonka waxaa salkiisu ahaa in la soo afjaro joogitaankii ay ku yimaadeen Soomaaliland deegaanadaas qoriga caaradiisa markii kacdoonku bilaabmay Muuse ciidamadiisu dadkii rasaas nool bay la dhaceen dhalinyaro uguba oo hablay inama leh bay waxay ka dileen 720 kamid ah iyaga dhowr maalmood oo isxigay arrinkaas xaaladii uga soo daray deegaankii baa laga saaray qori caadisa laga saaray Muuse wuxuu miciin biday inuu magaalada la dhaco madaafiic iyo gantaalo aan weli Soomaali lagu ridin 8 bilood oo joogta baa subax kasta magaalada wax loo qaybinay madaafiic iyo gantaalo iyo kuwa aan magacooda garanay anigu dagaalkaasi wuxuu ka bilaabmay kacdoon kadib hogaamiyaasha dhaqanka ee deegaankaasi waxay ku baaqeen shir ay isugu yimaadaan shirkii baa qabsoomay go'aamaha la isla gaaray subaxii go'aamada lagu dhawaaqi lahaa intaan salaadii subax la tukan 6 February 2023 baa Muuse ciidankiisu magaaladii xabad iyo dagaal ku soo qaadeen dagaalkii wuxuu socday in ka badan 8 bilood gaalo iyo muslim iyo Soomaali iyo darisyadu Muuse waa ka quusteen inuu xabadda joojiyo magaalada duqeynta ka daayo ciidankiisana uu qaato marxaata ka ahaydeen ilaahay wuxuu qadaray in 25 Agost Muuse iyo rajiimkiisa sigaar la isu dhaafiyay deegaankiina laga sifeeyay ma hadda ilaahay iskale dooda aan akhriyay iminka sababtan u akhriyay ma aha in dareenka Soomaalida aan kiciyo in dadkii dhibaatadu ay soo gaareen xanaftoodii aan kiciyo ugama jeedaan waxaan u jeedaa waa wax dhacay oo laga sheekayn karayo oo laga sheekayn doono haddii Ilaahay ka dhigo magaaladaas dhibaatada loo geystay waxaan ka baranay 10 dhowr casharada waxaa ka mid ahaa Muuse waxaa la rogmaday oo gediyay dulamkii iyo dhibaatadu geysanay xaqdaradiisii sida uu yeelay isagu haddii aad yeeshaan idinku idina dulumku waa idinla rogman karaya casharada aanu baranay waxaa ka mid ahaa casharadii aanu baranay waxaa ka mid ahaa in wax nabad lagu gaari karayo aan dagaal iyo colaad lagu gaari karayn annagoo ka duulana mabaadi'da noocaas 25 Agost markii ciidankii Muuse aanu ka adkaanay oo aanu nimi deegaanada iyada halkii u shisheysay waxaanu go'aansanay in aanan gelin deegaanada kale oo aan dhibaato ka geysan waa isceshanay ciidankayga waa kaantaroolay waana ku guuleysanay haddii anagana la dilay oo nala duqeeyay oo nala barakiciyay maxaanu inta u sameeyay anagu maxaanu argoosan weyn Soomaalidu wadana is garanayno argoosiga iyo yaan lagala tagin iyo arigala carrow waa dhaqan Soomaali Soomaa anagu Soomaali baan nahay
maxaanu sida yeelan u yeeli weyne sababtu waxa weeye inaanu wax dillo ama aan dagaalano ujeedkaygu ma ahayn waxaanu u dagaalanay oo aanu wax u dilayn oo aan muuse isaga celinayn in nabad la helo in xorriyad la helo iyo in midnimo la helo haddii marka aanu duulaanka iyo dagaalka sii wadno midnimo la heli maayo nabad la heli maayo xorriyad taamana la heli maayo marka waxaygu waxay noqonayaan xoog doofaar lagu eriyey si ay saas u dhicin baanu ku tashanay go'aamada aanu qaadanay runtii kumanaan wiil oo caraysan oo guryahoodii iyo magaaladoodii la dumiyey oo nin walba hooyadii la barakiciyay ama la badilay hooyadii baa qoryaha sitoo qaatay oo duruufta u geysay cadhada ay qabaan waa qiyaasi karaysaan iyagoo cadhada intaa leeg qaba baanu ku qancinay inay qoriga dhigaan nabadna qaataan darafkii kale oo aan diyaar ahayn baanu ku qancinay ilaahay fadligiis haddeer iyo maalinta intii ka dhaxaysayna waxaanu kor iyo hoosba u sheegaynaa nabadgelya aanu kula noolaanayna deriska aanana ku wada joogaynaa cidna dhibaato uma hayno aan waxaan rajaynayaa muuse haddii laga waayey inuu si xigmadaysan u shaqeeyo oo u fekero oo mas-uuliyaddaa saaran uu guto waxaan rajaynayaa in waxgarad kale oo fara badan oo deegaanadaasi ay aqbali doonaan in si nabadgelyaa lagu wada noolaado waxaa jira arrimo dhowra oo dagaalka ka dhashay oo u baahan in wax laga qabto waxqabadka raadkii dagaalkaasi waa waxa aanu caasimadda u nimi xukuumadda Soomaaliya waa kala hadalay shacabka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa la isma itaal dhaamay inuu soo ducayn taariikhda yar ee dhamaatay kadib waxaan doonayaa inaan tilmaamo 6 February shirkii dhaqanka SSC waxay ku soo saareen bayaan ka koobnaa 12 qodob qodobada waxaa ka mid ahaa in deegaankan loo dhisayo oo loo sameeyo maamul iyagu iska leeyihiin oo hoos tagi doona xukuumadda federaalka ee Soomaaliyeed si xigmadaysan baa looga fikirayo dastuurkan yar ee aynu haysanno baa la soo qaado waxa la xageeyay ka geli karaynaa waxa la yiraahdo qodobka 4aad baynu ka geli karaynaa dastuurka qodobkaasi wuxuu dhigayaa fuqahada dastuurku waa fadhiyaano professorku waa kan qodobkaas 4aad wuxuu sheegayaa deegaan kasta oo Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu maamul samaysto muddo 2 sanadood ku meel gaar ah labadaas sano kadib waxa laga doonayaa inuu u gudbo federal member state ama uu ku biiro mid jiray hore intaanu cagaha isku taagano waxaanu go'aansanay 2 sanadood inaanu qodobka dastuuriga ah aanu ku dhaqanaan maamulkii iyadoo dalka dagaal ka jiro baa la dhisay doorashooyin baa dhacay waxa la isla gartay in matalaada dhabta ah ee deegaankaasi ay wataan maamulkaas xilliga adag soo baxay ku soo beegmay maamulka hawlihii hor yaalay way fara badnaayeen laakiin waxaan doonayaa inaan dhowr qodob ka tilmaamo qorshayaasha maamulka aan hogaaminayo laga sugi karayo waayo maxaa u qorshaysan maamulku meel gaarka ah si khaatumo waxa noo qorshaysan baan doonayaa inaan soo koobo haddii alla ka dhigo qorshayaasha maamulkaas qodobka ugu horeeya naloo igmaday wuxuu ahaa in deegaankaas aanu matalayno si aan u maamulno aanu hanana annagu marka iyada ah
maleeshiyaadka Soomaaliland ee Muusabix hogaaminayo deegaanka in badan oo ka mid ah bay ku jireen caasimadda Laascaanoodna waa dul fadhiyeen buurahaas ay saaraayeen waa duqeynayeen subax kasta marka qorshaha koowaad wuxuu ahaa in maamulkaas laga sifeeyo deegaanka loona gudbo wixii kale maamulka la gudban sidoo loo sameyn lahaa ilaahay amarkii 15 casho kadib markiina loo dhaariyay xilkii mas'uuliyadda maamulka waxaan ku guuleysanay inaan maleeshiyaad ka saaro deegaanka oo dhan oo aan ku celino meeshii ay ka yimaadeen magaalada Og la yiraahdo magaalada Og la yiraahdo waa meeshii markasta aad maqlayseen la oran jiray Muuse ciidankaaga Ogge iyo geyn maayo sideed bilood arrinkaas la hadalhay laakiin wax ka yar 2 saacadood baa Muuse meeshii ku tagay dalkiina ammaan ku noqday hanashada kadib qorshayaasheeda waxaa ka mid ah in la adkeeyo nabadgelyada gudaha iyo tadriisyada labadaba tadriisyada kale ee deegaankaas nabadgelyada ku wada joognaa wax dhibaato nagama dhaxeeyaan colka aanu isdilay iyo maamulka aanu isdilay ee nala dagaalamay anagu dhibanaha koobaad baanu go'aansanay inaanu nabad qaadano oo aan nabad kula noqonaan saasay ahaanaysa xagga iyaga haddaan xagga Ilaahay laga waayin waxaan rajaynayaa in dhinaca kalena ay nala gartaan oo ay ogaadaan qiimaha nabaddu leedahay qorshaha kale saddexaad ee maamulka iyaga u qorshaysanay waxa weeye in la daadajiyo maamulkii la dhistay oo la gaarsiiyay gabi ahaanba deegaanada SSC Khaatumo SSC waa Sool iyo Sanaag iyo Cayn Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa dhul la wada degan yahay si ishkaalka aan uga baxno oo aanan u sheegan dhul dad kale nala degan yihiin annagu aanan insasiin waxaanu raacsiinay SSC da Khaatumo inta heer Khaatumo degan yihiin weeyaan macnaheedu saaxiibkay maareeya Caynaba kuma haystaan waa sala degana waxaan leeyahay maareeyo tuulada aaminteydana aaminayaa in la daadajiyo maamulkii oo la wada gaarsiiyo deegaanada maamulkan uu ku isman yahay inuu matalo waa qorshaha saddexaad ee noo yaala qorshaha afraad in aanu ka shaqeyno sidii looga jawaabi lahaa baahiyaha degdega ah iyo adeegyadii bulshada ee ku burburay dagaalkii bana ee lagu soo qaaday magaalada iyo nawaaxigeeda qodobka shanaad ee noo qorshaysan waxa weeyaan in la helo dib u heshiisiin dhab ah oo aanu ka shaqeynaa annagu bulsho aan heshiis ahayni cid lama heshiin karayso iyaduna heshiin kari mayso haddii aan heshiis iyo istiqraar jirinna horumar iyo dib u dhis iyo dib u dejin iyo xasilooni jiri maayaan waa qorshaha iyaga shanaad ka lixaad waxa weeye in hor yaalla 2 sanadood baana la igmaday haddii Ilaahay nafta nagu simo waxaan doonaynaa 2 sano gudahood inaanu deegaanka ka saaro marxaladda ku meel gaarka ah oo aanu gaarsiino geed weyn oo madlan oo Soomaali lagu og tahay halka markay marayso xukuumadda iyo shacabka Soomaali waxaan uga fadhinaa war Soomaali baanu nahay waan ahaan doonaa laakiin halkan Soomaali dhexdeeda ka fadhiisan lahayn hana loo asteeyo qorshayaasheeda waa soo koobay waqtigu waa dheeraaday intaasaan ku soo koobayaa kulli waxaan jiri doonaa su'aalaha macadkuna ila ceel qabo idinkuna aad weydiin doontaan si furan baynu haddii Ilaahay ka dhigo soo wareysaana aakhiriga dib oo ka warramayna haddii Ilaahay ka dhigo waa mahadsantihiin